السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود وهذا أدي هذا ومهتنتهين ما أنت وتلاذ وأنا أفرت بش السديدات أغسطس سنة كلا بدكون إيه لحية لباتنك مقال كان وحرب إن نذكر وذاقو دور شوي إسرائيل وما أنت كذا عياشان قبل أو قبل هذا أمريكانك لكن tartanka ugu muhiimsan waa tartan laba xubnood oo dimuqraadi ah ka dhaxeeya nin muslim ah oo la yiraahdo Dr. Cabdiraxmaan Mohamed Al Sayid iyo haweeney kale oo cadaan ah oo aqalka wakiilada ku jirta oo la yiraahdo Haley Stephens ayaa waxa ay ku tartamayaan Israa'iilka kursi sanada oo gobolka Michigan arintaasi diiradda ayaan ku saarayaa xisbiga dimuqraadiga oo ku kala qaybsamay taageerada labadaasi xubnood maxay yihiin waxyaabaha ay ku ololeynayaan lacagaha ololaha oo xayisiinada ay ku bixinayaan xagee ka heleen arimahaas oo idil ayaa raba inaan idin la wadaago iyo aqlabiyada aqalka sanadka oo labada xisbi ay ku tartamayaan doorashada November sidee loo kala horeeyaa gobolada ayaana tartanku uu ka jira sidoo kale waan idin la wadaagaya arin la yaab leh ayaa dagaalka Iran ka soo baxday waxa la leeyahay wasaaradda gaashaandhigu hadda ciidamada ay email u dirayaan waxa ayna leeyihiin bal waxaad keentaan fikrado lagu ciqaabi karo Iran si dagaalkan Mareykanku ugu guuleysto madaxweyne Trumpna shalay waxa uu xaqiijiyay in fursadii ugu dambeysay Iran oo siinayo maadaama ay soo waceen oo yiraahdeen duqeymaha aad nagu soo wada naga jooji wada hadal ayaan diyaar u nahay iyo heshiis waxaana sidoo kale soo baxayso warbaahinadu ay tabinayaan toddobaadkii hore kulan aqalka cad madaxweyne Trump uu kula yeeshay golahiisa amniga qaranka in madaxweynuhu uu xanaaqay isla markaana uu caayay xubnihii goobta jooga isagoo ka careysan sababta dagaalkan Mareykanku ugu guuleysan la yahay isla markaana loo soo gabagabeyn la yahay xilli doorashooyinka xilliga dhexe wax ka yar 3 bilood hadda ay ka harsan yihiin madaxweyne Trump sidoo kale waxa uu ka careysan yahay shirkadaha shidaalka ee Mareykanka oo hadda ay soo baxday in lacaga fara badan ay faa'iideen isla markaana uu sheegay inuu san ku faraxsanayn loona baahan yahay lacagahaasi qayb ka mid ah shacabka Mareykanka inay dib ugu celiyaan balse marka hore soo dhawaada doorashooyinka xilliga dhexe ee Mareykanka wax ka yar 3 bilood ayaa ka harsan marka doorashooyinkii ugu dambeeyay Israa'iilka ayaa gobolada Mareykanka maanta ka qabsoomaya ilaa iyo 5 gobol oo gobolada Mareykanka goboladaasna waxay kala yihiin Washington State, Kansas, Missouri, Michigan iyo waliba Virginia laakiin waxaan diiradda si gooni ah u saaraya gobolka Michigan oo nin muslim ah oo waalidiintii asal ahaan Masar ay ka soo jeedaan isla markaana dhakhtar ah oo la yiraahdo Dr. Cabdiraxmaan Mohamed Al Sayid 41 jir ahna waa ayaa waxa uu la tartamaya haweeney ku hadda ku jirta aqalka wakiilada ee Congress-ka Mareykanka oo cadaana oo 4 xilli oo kala duwan ku soo jirtay oo 43 jir ilaa iyo sanadkii 2019 oo la yiraahdo Haley Stephens laakiin waxyaabaha lagu tartamayo waxa muhiimada diiradda la saarayo waxa kamid ah lacagaha labada dhinacba ninkan muslimka iyo gabadhan cadaanka ay ku ololeynayaan tartankan kursiga aqalka sanadka ee xisbiga dimuqraadiga ah waa doorashadii Israa'iil ee ugu qaalisanayd taariikhda xisbiga dimuqraadiga soo marta waxana haweeneydan Haley Stephens xayisiin ay ku bixisay in ka badan 63 milyan oo dollar isla markaana xayisiinada lacagahaas inta badan waxay ka imaanayeen urur taageero leh xiriir leh ururka AIPAC oo Israa'iil ee taageera Abdul Sayid isagu waa iska fogeeyay wax lacag ah inuu ka helo ururadaasi Israa'iil taageera waxana waxyaabaha uu ku ololeynayo kamida in dadku caafimaad guud ay wada helaan iyo sidoo kalena in ICE gabi ahaanba la baabiyo ciidamada ICE iyo in Mareykanku uu joojiyo taageerada military oo Israa'iil militarigeeda sanad kasta uu Mareykanku uu siiyo hadda aftidii u dambeysay Dr. Abdul Sayid ayaa 54% ka sareeya in haweeneydan Haley Stephens oo 39% haysata marka sida muuqata marka maadaama hadda lacaga fara badan lagu bixiyay kursigan haddana xisbiga dimuqraadiga oo ay ku kala qaybsan yihiin Dr. Abdul Sayid waxa taageeray Alexandria Ocasio-Cortez oo New York laga soo doorta iyo Bernie Sanders oo Vermont laga soo doorta halka haweeneydan Haley Stephensna oo taageereen Jack Schumer oo gudoomiyaha aqlabiyadda ee aqalka sanadka oo New York laga soo doorto iyo haweeneyda xilka gudoomiyaha gobolka Michigan ka sii tagaysa ee Gretchen Whitmer ayaa taageeray marka Dr. Abdul Sayid waa progressive halka sidoo kalena haweeneydan ay tahay moderate sida muuqata marka laba dhaxdhaxaad ay iyaduna tahay marka kursigan waa kursi muhiim u ah xisbiga dimuqraadiga maadaama ay doonayaan aqlabiyadda aqalka sanadka inay dib u soo cishtaan hadda kuraastu waa 47 oo dimuqraadiyiintu ay sanadka haystaan iyo 53 oo republicaanku ay haystaan marka gobollo fara badan ayaana tartan uu ka jira marka Dr. Abdul Sayid iyo Haley Stephens qofka soo baxa November waxa uu la tartami doonaa Mark Rogers oo Trump uu taageeray oo isagu doonaya labadooda midkii soo baxa in uu November
uu la tartamo. Marka waa doorasho aad u muhiima. kolay fiidka hore ayaa natiijada la ogaan doonaa hadday doorashada isreebka Dr. Cabdulsaayid uu ku soo baxo iyo haddii Hailey Stevens ay ku soo baxdo. marka aan eegno kuraasta laga yaabo dimuqraadiyiintu inay ku guuleystaan November. dimuqraadiyiintu waxay u baahan yihiin 47dooda kursi inaysan hal kursi lumin isla markaana 4 kursi oo dheeraad ah ay helaan. marka waxaa kuraasta ka mid ah marka tartanka xoogan uu ka jiro gobolka Texas oo kale James Talarico waxa uu la tartamaya Ken Paxton oo Trump uu taageeray. James Talarico waa dimuqraadi. dhinaca Maine Susan Collins oo iyadoo 73 jir ah ilaa sanadkii 1997 sanadka ku soo jirtay waxa ay la tartamaysaa Troy Jackson oo hadda toddobaadkii la soo dhaafay taageerada xisbiga dimuqraadiga helay oo 516 ergaa helay kadib markii Graham Bladner uu iscasilay horaantii bishii hore markii haweeney ay ku eedeysay in isagoo cabsan intuu gurigeeda ugu yimid uu ku kufsaday. marka waxaa sidoo kale jirta gobolka North Carolina Roy Cooper ayaa hadda waxa uu ka sareeyaa oo 53% aftida uu haystaa Michael Whatley oo isagu Trump uu taageeray. Roy Cooperna gudoomiyihii hore gobolka North Carolina ayuu ahaan jiray. marka doorashooyin kale Iowa, Georgia, Arkansas ay ka jiraan laakiin kuwa ugu muhiimsan oo hadda diiradda la saarayo dimuqraadiyiinta ay doonayaan inay kuraas ka helaan waxa ugu muhiimsan goboladaas ay ka mid yihiin Texas, Maine iyo sidoo kalena gobolkaasi North Carolina oo ay doonayaan in ay kuraas ka helaan si aqlabiyada aqalka sanadka ay ula wareegaan. marka madaxweyne Trump haddii labada aqal looga guuleysto ama midkood looga guuleysto labada sano ee ka harsan waqtigiisa way ku adkaanaysaa sharciyada uu doonayo inay u meel maraan. marka waan arki doonaa arrimahaasina waxyaabaha ka soo baxa. dhinaca kale madaxweyne Trump ayaa shalay waxa uu sheegay Iran inuu fursadii ugu dambeysay uu siinayo isla markaana ay soo waceen oo ay ku yiraahdeen weerarada aad nagu soo wadan naga jooji diyaar u ayaan u nahay wada hadal iyo inaan heshiis qaadano. marka madaxweynaha hadalkaasi shalay aqalka cad ayuu ka sheegay bal wax yar ila daawada madaxweynuhu markii uu hadalkaasi dhahay. They called me and they said please don't attack, we'll make a deal. That's the real truth. And everyone knows it. I want to give them every last chance before decapitation. Very tough to do what we have planned, still planned. We'll see what happens. sidoo kale madaxweyne Trump waxa uu yiri marinka Hormuz maalinta bariba waa la furayaa oo maanta ah sida muuqatana arintaas ma jirto. madaxweyne Trump 7 jeer oo hore ayaa waxa uu baajiyay weeraro uu sheegay in Iran goobahooda korontada iyo uu ku qaadi lahaa buundooyinkooda isla markaana waxa uu yiri diyaar ayay u yihiin wada hadal. marka madaxweynuhu markastaba waxa muuqata in isagu uu kaligii wixii uu rabo uu iska sheeganayo. marka Trump waxa uu yiri wajiga labaad ayay noqon doontaa arrimaha nuclearka laakiin marinka Hormuz degdeg ayaa lagu furaya isagoo arrimahaas ka hadlayna Trump waxa uu yiri. We're talking about the strait, the opening of the strait, having it open literally by tomorrow. Completely open, and that's phase 1. The denuclearization of Iran has to happen, and that'll be the second phase. laakiin warar hadda la helaya ayaa waxay sheegayaan in wasaaradda gaashaandhigga ee Mareykanka ee Pentagonka ay email u dirayso ciidamada Mareykanka isla markaana ay weydiinayso fikrado la xiriira qaabka Iran loo ciqaabi karo si dagaalkan Mareykanku ugu guuleysto. marka wasaaradda gaashaandhigga waxaa muuqata inaysan haynin wax natiijad Iran dagaalkan inay uga guuleystaan. marka hadda ciidamadii ayaa email loo diraya. sidoo kalena arintaasi CNN ayaa tabinayso maalmihii u dambeeyay marka warbaahinada Mareykanka qaarkood waxay soo tabinayeen madaxweyne Trump in toddobaadkii hore kulan uu aqalka cad kula lahaa golihiisa amniga qaranka in madaxweynuhu uu aad u xanaaqay oo qaar ka mid ah xubnaha golaha amniga qaranka ku jira in madaxweynuhu xitaa uu caayay uu aflagaadeeyay. marka madaxweyne Trump waxa la leeyahay carad darteed ayuu hal mar caay ku bilaabay xubnihii waxaana sheegay maxay tahay sababta dagaalkan uu sii daba dheeraanayo, maxay tahay sababta aan ugu guuleysan lahayn, maxay tahay istaraatiijiyadda aanan hayn oo dagaalkan nagu sii daba dheeraynaysa maadaama hadda 5 bilood ay dhamaatay oo bishii 6 ay socoto doorashooyinka xilliga dhaxana ay soo dhow yihiin. marka waxa la leeyahay madaxweynuhu ereya caay ah oo qaab daran ayuu xubnihii meesha fadhiyay uu ku yiri isla markaana waxa uu yiri maxay tahay sababta horumar aan uga sameyn laanahay in heshiis la gaaro ama dagaalkan aan ku guuleysano. marka madaxweynuhu waxa la leeyahay aad ayuu arintaasi uu uga carooday. madaxweyne Trump shalay sidoo kale markii uu aqalka cad ka hadlayay waxa uu sidoo kale aad u weeraray shirkadaha shidaalka ee Mareykanka sida Exxon Mobil iyo waliba Chevron oo hadda la leeyahay Chevron 12 bilyan ka badan ayay faa'iiday 6 bilood ay u horeysay ee sanadkan. sanadkii horena xilligan oo kale 2 bilyan iyo bar ayay faa'iiday sanadkii
sanadkii 2025 marka madaxweyne Trump waxa uu yiri kuma faraxsani lacagahan faraha badan oo ay faa'iidayaan shirkadaha shidaalka maxaa yeelay ilaa iyo 6 bilood oo dagaalka uu socday shidaalka Mareykanku marna waa uu kacayay marna waa uu soo dagay hadda $4 ayaa celcelis ahaan oo maraya sida gobolada West Coast oo kala dhinaca galbeed ku yaala $6 ilaa $7 ilaa $8 ayuu ku dhow yahay marka madaxweyne Trump wuxuu yiri lacagahaasi ay heleen oo ay faa'iideen shirkadaha shidaalka waa inay shacabka Mareykanka ay dib ugu celiyaan. They're making too much money. I don't like it. They got to give some of that back to the public, and they better cut the retail price, the consumer price. marka madaxweynuhu dagaalkan waa uu ku daba dheeraaday wax xal ahna ma muuqdaan sida hadda aan la arkayo maadaama doorashooyinka xilliga dhaxan ay soo dhowyihiin uu ka walwalsan yahay in labada aqal looga guuleysto oo dimuqraadiyiintuna waxyaabaha ay ku ololeynayaan ay ka mid tahay in shidaalkii cirkaasi uu ku jiro raashinkii qutul daruuriga qofku markuu dukaanka aado in lacago fara badan uu ku soo adeeganayo arrintaasina waxay tahay arrinta madaxweyne Trump madaxa ka xanuujinaysa Iran wuxuu yiri waa laba wajiilayaal markaad wada hadashaan oo maanta waxaad isku ogeedeen bari ma ugu tagay sidoo waji kale ayay kula soo baxayaan ayuu shalay xitaa waa kibartiisa True Socialka ku soo qoray marka waan arki doonaa asxaabay doorashadan Michigan haddii Dr. Cabdulsaid uu ku guuleysto kulay isla caawa waa la ogaan doonaa waan idila socodsiin doonaa barahayga bulshada ay kala duwan ilaa iyo bari ilaa iyo caawa aad iyo aad u mahadsantiin intaan markale kulmi doono